الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي لحية اللباتنات هي كتاب كيني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. waxaan tilmaamaynaa sifatu naar. ilaahay naga badbaadiyo naarta iyo sifada ay leedahay, tilmaamaha ay leedahay, asmaada iyo magacyada ay leedahay, khasanada iyo dadka naarta gacanta ku haya, yacni malaa'igta ilaahay u gartay inay naarta gacanta ku hayaan, albaabada naarta, tafaawudka in cadaabku naarta dhexdeeda lagu kala tagsan yahay oo dadku kala duwan yihiin, waquudka iyo waxa lagu shido naarta, waxyaabaha lagu shido. waxaa inooga dambeyn doona insha allahu tacaala oon ku nasan doonaa gebagabada ugu dambeeyana noqon doona jannada iyo iyadana intaa ileeg sifaadkeeda iyo tilmaamaheeda iyo dadkeeda iyo kala duwanaanta dadka iyada nafteeda ku jira insha allahu tacaala. ilaahay subxaanahu watacaala ahalka iyo dadka jannada haynaga dhigo, rabbina subxaanahu watacaala haynaga badbaadiyo naartiisa iyo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisaba alla haynaga badbaadiyo. haddaba tilmaamaha naarta oo qur-aanku si cajab badan uu u sheegay iyo axaadiistuba, rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara. naar lagu shidayo. waquudka waxaa la yidhahdaa shidaalka la yidhahdaa, shidaalka caadiga ah oo dabka lagu shido iyo baasiinka iyo waxyaabaha shidaalka ayaa la yidhaahdaa waquud. marka naarta waxaa lagu shida sideedaba waa dad iyo dhagaxaan. waxaa albaabadeeda jooga calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun laa yacsuuna allaha ma amrahum wayafcaluuna maa yu'maruun. malaa'ig ilaahay hawshaa u diray oo iyagu dee meeshaa qofka jooga iyo cidda loogu talagalay naxariis aan markaa u gelaynin qofkii halkaa ugu yimaada, allah aan ku caasinaynin, marnaba amarkiisa aan diidaynin, meesha binu aadamku ay ka diidaan, samaynayana wixii loo diro un iyagu samaynaya. nacam walaalayaal, waa naar waxa laga hadlayo. waa naar dadku ay noqonayaan waquudka iyo waxa lagu shido. waa naar qofkii halkaa yimaadaayey wax qiimo ah uusan lahayn. waa naar huraysa oo gubanaysa. kalaa inahaa ladaa nazaacatan lishawa. nazaacatan lishawa waxa weeye tanzic, waxay siibaysaa naartaasi maqaarka ayay wejiga ka bixin, madaxa ayay kasoo bixinaysaa, maqaarka ku jira ayay ka saaraysaa. tadcuu man adbara watawallaa. waxyaabaha cajabta badan waxay u yeedhaysaa qofkii damca inuu cararo uu ka jeedsadana way u dhawaaqi naartu, sidii adduunka loogu yeedhi jiray hanuunka iyo diinta loogu yoru kaalaya diinta la odhan jiray oo qofku uu ka jeedsan jiray. laakiin maalinta iyada ah ma jeedsan karo, ma ka carari kara jahannamo, bal wuxuu imaanayaa isagoo ordayuu imaanaya, daa'ican musrican, isagoo oo degdegaya ayuu iman, cadaabkana wuu imaanayaa. annaar hiya annaar, waa midda ilaahay subxaanahu watacaala uu talagalay alkufaar iyo inta la halmaashay iyo munaafiqiinta iyo dad badan oo cusaad bani aadamkan dadkooda caasiye ah. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala raxmadiisa way badan tahay. waxaana lagu xusay qofka ahlu iimaanka ah: man qaala laa ilaaha ila allahu nafacathu yowman min addahri ama dakhala aljanna khaalisan min qalbihi baa ku jirta. laakiin sidaad ku aragteen kutubta caqiidada ah, shardiga in loo xidho khaalisan min qalbihi, ilaahay dartii ay ka tahay, ahlu tawxiid ah, insha allah wuxuu ku dambeyn doonaa jannada ilaahay buu ku dambeyn doonaa. xitaa haddii cadaabka lasoo mariyo oo lagu soo ciqaabo wax laga soo googooyo, wuxuu ku dambeyni jannada ayay noqoni meesha uu ku dambeeyay biidni illaahi tabaaraka watacaala. rabbi wuxuu leeyahy subxaanah: rabbanaa inaka man tudkhil innaara faqad akhzaytahu wamaa lilظaalimiina min ansaar. qofkii naarta hala geliyo
waa la hoojiyey. ilaahi subxaanahu watacaala hinaga badbaadiyo. rabbi subxaanahu watacaala qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraanu almubiin. dadka khasaaray iyaga iyo ahalkooda iyo reerkooduba waa kuwa maalinta qiyaamada ah, yowma alqiyaama dadka khasaaray wey. khasaaraha dhabta waa khasaaro cadiima. khasaare kaasaa la yidhahda qofka waxoogaa shilimaada intuu ganacsi ku jira waxoogaagii ka gubtay baa wuxuu dhahaya waa khasaaray, oo haddana dhowaan dib u bilaabi karood aragteen. intaasoo jeer intuu qofku moora duugmo wixiisu baabo haddana dib u bilaabo. lahum min fawqihim dulalu min annaari wa min taxtihim dulal dalika yukhawifu allahu bihi cibaadahu yaa cibaadi fattaquun. waa naar dhinacyada badan ka jirta, kor iyo hoos iyo dhinac walba qofka ka jiraysa. waa naar ayuha alaxiba ee ilaahay subxaanahu watacaala qofku uusan ku sabri karaynin oo uusan maaragtay joogi karaynin, oo waxyaabo badan ay kamid tahay dhibaatooyinka meesha ka jira. ilaahay subxaanahu watacaala hinaga badbaadiyo. ilaahay subxaanahu watacaala inaga iyo ehelkeena iyo awlaadeena iyo mashaayikhdeena iyo mucalimiinteena iyo muslimiintaba rabbi subxaanahu watacaala ka badbaadiyo. allana hayna xifdiyo towxiidkiisa, ahlu towxiid allah inagu dilo xusnu lkhaatimiyo kelimatu towxiid. allah ka dhiga kelimadeena ugu dambeysa. jazaakum allahu khayr wbaaraka allah fiikum.